waxay ahayd galab jimcaah tirsiga taariikhduna uu ku beegnaa 5 bisha koowaad sannada 2017 waa amintii loo ballamay in loo jihaysto deegaanka Zubaara ee waqooyiga dalka Qatar halkaasi oo la sii qorsheeyay inuu ka qabsoomo kulan suugaameed oo qayb ka ahaa wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon goobta kulanku ka qabsoomay ayaa ahayd mid dad badan oo magaalada aan ka bixin dib ugu celisay xasuustii nolosha baadiyaha ee Soomaalidu ay caanka ku ahayd waxaana kulanku ka qabsoomay xilli habeena teendho si weyn loo diyaariyay madasha waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar kuwaasi oo iyagu soo qaban qaabiyay kulankan oo dadkii ka qayb galay xasuus ku reebay Cabdimaalik Coldoon ayaa kulanka ku daahfuray gabayo kala duwan waxaana qayb ka ahaa mid ku saabsan Gaza. هنا غزة، هنا العزة، هنا الزيتون والتفاح وأحياء الشجاعية، هنا الأشباح تحت الأرض فوق الأرض لا تلمح، هنا أرض تخيف عساكر المحتل، رأوا منا عجائب قدرة الجبار، رأوا سيلا من الضربات على القبب الحديدية، رأوا طفلي يفارقني يناشدني بأن أصمد وأن لا أنحني أبدا وأن أطلق صواريخي. دكتور عمر محمد ورسمه oo ka hadlayay suugaanta uu soo bandhigay Cabdimaalik ee dhinaca Carabiga ayaa sheegay inay tahay mid aad u sareysa isla markaana aanu filaynin wuxuuna sheegay in suugaantan looga qayb gali karo tartamo caalami ah isagoona Cabdimaalik ku dhiirigeliyay aan aamsanahay waa gabay mustawihiisu uu sareeyo musaabaqaad waaweyn aan uga qayb gali waxaan la yaabanahay ilaa hadda inaad la soo daahday oo inkastoo ku mashquulshay arrimihii khayriga iyo arrimo fara badan oo kale aad ku mashquulshay dalkana wax saa u dhiirigeliyo gabayga Carabiga ama musaabaqaad aadan helin laakiin waxaan leenahay maadaama hadda dooxa ay imaaday hadda laga bilaabo waxaan aan ku faanina inaan kaaga qayb galno iyo gabayadaada musaabaqaadka caalamiga ah ee luqadda Carabiga ee gabayga Carabiga lagu tiriyo marka caawita halkan waa ku caana shubaynaa كل عانا ما هينا لكن وحاول بيه يشهي وكل أحمد فرتاق إيا فارح بنين بوس oo kamid ah hal-abuurada lagu casuumay kulankan ayaa dhankooda soo bandhigay suugaan kala duwan dabadatan waxaan ku bilaabay toon baa leheedo tusku helay 7 week tacab beerihii galay midhihii tis qaadeen xooluhuna tigaadii ay dhowr talaabiyo taakooyin deeqeen taabaqaadka reeraha dhalinyarada tiirsanay 7 habeenimo tagayaan ciyaaraha tabta looga boodiyo sacab ay tumayaan ay heesa tirin iyo tixihii ka qaadeen geeli uu tayeysto tifka siiyay caanaha cabitaan ma tirayo cidimaba tabaysi uu tulmay xoorki ina toosan awrkii tawaad dhuxul la moodiyo sibraa dhibido kaga taal sooma tagin tuftiiguga habeenkii hurdada tartarkan u seexdaan kaba toosi waayo hawa aan turxaan layn oon tabaaymaan helin tii ay baweeyo tukashada salaadii shantii sooma taagnay ilaa ma 7 goortaan tasbiixsaday tusbax kuma wardiyahay caana tiiris leedahay sawtoos ardaagii intaan tagay caana tiiris leedahay sawtoo Usmaan dhabin taladana allaale soo tallaabata mashliin balligii kuma tagin sawtoo Usmaan arag tabtii inan suleeqo ilaa ma tin iyo cirib taam yahay jirkeedii tafta aan banaynoo tiiruna asturanoo dharka kii tilmaan wacan taqam dahab xidhan oo beesha laga tilmaansado hadal tiigsi ma laho qofka laguma tuuray dhankii ay ka taagnayd tawsoo umaan oran halkeebaad ka timi iyo tuma lagu yiraahdaa toos warkaaga iisi telefoonadaydiyo anna taarkayga qoro toyashada kumaan oran tiyo xishoodlay warka ii tibaaxdo markabkii taraaraxay Titanic oo kale soo tiisi maan marin wassalaamu calaykum libaax iyo shabeel ayaa kaynta shirka dhacay lagu casumay wad aragtaa marka arrinta soo socoto marka wuxuu shalay subax khamiistii markii shaacu soo baxay shabeel iyo libaax baa shirkii kaynta soo galay mise dabagaal la shaybo shaad iyo surwaal iyo sharabaad madow iyo shaale xidhan baa shirka maamulayo marba sheekh la leeyahay
shabeelkiina yaabiyo shaarubihiina miiqiyo shafka sare u taagiyo libaaxii faq wax ugu sheeg wuxuu yidhi shabeelkii shiikhow libaaxow shirka yaa iclaansho indhahoodna oo shana ina wada shirqoolo shaar iyo surwaal xidhan abushaash libaaxii wuxuu yidhi shabeelow berri shalay tomay noqon sheekadaasi dhacantaye shirka buuqa kala soco abushaash libaax iyo abushanab shabeelkii dabagaalle shaybaa markuu doono shiriyo wuxuu doono sheedhay intaan shaarubaha kan miiqan intaan sheef laga marin shib dhexoo afkana xidho cabdimaalik ayaa markii uu madal sugaameedkan kusoo bandhigay gabayo kala duwan oo uu sameeyey kuwaasi oo luuqadda carabiga uu ku curiyey ayaa laga codsaday gabayga hiya difla oo ku saabsan qiso jacayl oo luuqadda carabiga uu ku curiyey bal inuu bulshada la wadaago mar kale isagoo luuqadda soomaaliga uu ku curiyey kaasi oo ku caanbaxay imeermeeri anigana imeermeeri weliga imada daali markastaba imaaweli waxamankayga buuxa maskaxdayda miraanaya murugada jacaylkaaga mahadhada xasuustaadu waa muuqa jeegaanta iyo mayayaga reebay markaan marayo aagii meeshii aad ku noolayd mudh baan galaa dheere mar haddaan ku maamuusay meel wacan ku gaadhsiiyey maxay tahay waxaad yeeshay anigana imeermeeri weliga imada daali markastaba imaaweyni maalmaha adduunkeennu waa miradha tira kooban marun soo dhammaanaya maad maalmo ilaa joogtid midhahayga la xamaysad ha noqdaan macaan heese inuu mawdku iman doono muran taasi kama taagna midkeen baa horaynaya mawlaha ilaaheennu ama soxo dunuubteena midigtana kitaabkeena anigana imeermeeri weliga imada daali markastaba imaaweli markastaba imaaweli markastaba imaaweli. intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamij gaar ah oo aan uga hadlaynay kulan sugaameedka taariikhda galay ee jaaliyadda dalka qatar ay ku cansuuntay weriye cabdimaalik sheekh muuse coldoon. barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay soona diyaariyey anigu axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed darwiish ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.